nimankii aan la diriraynay oo sacad weliba reer jalaf caydiid raggiisii yaa mareexaankii wuxuu u noqday ayagaa badbaadiyey dagaalkii waxaa uu odaga lagu saarayey waa caydiid ninka ka soo saaray caydiid baan ahay oo kula dagaalamay dhammaan degmooyinka oo gado oo dhan baan ka soo saaray markii dambana waxaan ciidan u dirnay meesha la yidhaahdo kismaayo caydiid baa haystay ayadana kismaayo markii aan ka soo saaray beljimku markay joogeen baan ka soo saaray waxaan lagu dhexdhexaadiyey in ayaguna luglow degana annaguna aan degno goobweyn labadaas madax heshiis isu muuqdaan waa dagaal dambana aan la samayn markaas morgan baa ciidankaas madaxu ahaa anugu waxaan joogay waan ka soo ambabixiyey meesha la yidhaahdo baardheer markaas morgan adigu koo simaanay markaas baardheere asaga oo waxay noo yimaadeen asaga iyo gabyow iyo ayagoo gurmadoon ah ciidan doon ah bay noo yimaadeen ciidankaasaan annagu ku xoojinay marka macal saraakiishii ila shaqaynaysoo dhan baan ku daray aniga marka baardheere baan joogay oo anigu aan wax ka hogaaminayay isagaa hawshaas waday hawshaas markuu ku waday isaga meeshii travis baa dhacay isbeddel baa dhacay mareexaankii bay ka soo saareen magaalada markaasaa goobweyn la keenay goobweyn markay yimaadeen nimankii aan la diriraynay oo sacad weliba reer jalaf caydiid raggiisii yaa mareexaankii wuxuu u noqday ayagaa badbaadiyey goobweyn bay dejiyeen mareexaan horeyna difaac bay ka dhigeen markaasaan anugu baardheer ka baxa yaa laga badbaadinaya markaas yaa waa cidda laga badbaadinaya markaas waxaa laga badbaadinayaa morgankii aan shalay anagu meesha geynay aad meesha geyseen isagaa laga badbaadinaya dagaalkii halkaasaan anagu marka anugu halkaasaan ka baxay goobweyn baan ugu tegey morgan kismaayuu haystaa mareexaankiiba lasoo saaraan ku kismaayo ani ma tegi karo goobweyn baan ugu tegey mareexaankii iyo qolyihii kale oo habargidir meesha isugu tegey dagaalkii markii caydiidii adiga idin dhexeeyey bahasha weji kale u yeeshay weyn la weyn bahasha la yihahdo goobweyn goobweyn baa aniga iyo nimankii habargidir oo intaad ogey isla soo maray goobweyn baan ku heshiinay markaas xaggaasaan u jeesanay nimankii la odhan jiray kismaayo oo ninkii la dhihi jiray morgan ahaa waa la naadiyey mareexaan baa la naadiyey microfon gabar gabadheed qofkii hayaa la yidhi ya waxa weeyaan ayagu la dembi baa la yidhi adigu goobweyn baan halkaasaan anagu hawshanadii ka wadnay dhowr bilood adigu waxaan joognay muddaan joognay halkaas ugu dambaystii morgan halkaasaan ka saar magaaladii annagaa ka saar annagaa ka qabanay kaasaan uga bixin annaga iyo habarkiidoo wada soconna caydiid waaba dhintay markaas wiilkiisaa jooga xamar markaas marka waxaa iskaashanahayay annaga iyo habargeed marka isku ciidan baan noqonnay isku waxaan noqonnay waa u midownay marka yaa kululaa dagaalkii caydiid aad la gashay iyo kii morgan maxaa taariikho ka xasuusataa kii morgan iyo kii caydiid aad la gashay iyo kan caydiid maxaa taariikho ka xasuusataa
wallaahi laba dagaal waa dagaallo waaweyn. aniga markaan taqriiban hadda noodkii ma hayo, laakiin waxaan qiyaasahayaa dagaalkan caydiid wada gallay 100 waa gaaraya goobood oon ku gallay, ama waddo ama tuulo ama degmo, intaasoo dhan oo dagaala, ama ilaa baydhabo iyo carada. Morgan dagaalkiisa asagu dhowr jeer asaguna ahaa. dagaal sidiisana waa isku mid, dagaalku asagoo isku mid waaye. hadba uun qoladii la jabiyaa unbaa guusha laga helayaa, ma ogi waxa la isku ridayaa waa isku nooc, waa isku qori. marka waxaan rabaa inaan ku weydiiyo, waxaad ii sheegtay in dagaalkii adigii ciididii ka dhexeeyey dhexdhexaadin la sameeyey Morgan oo gurmad imaaday. Morgan maxaa bedelay oo inuu kaa soo horjeesta keenay? waxaa keenay Morgan baa cadaalad darro sameeyey. Morgan waxaan isku ogeyn Kismaayo inuuna dadka ku kala saarin, mid ahadan Soomaalinimo ku shaqeeyo, mid la aado uusan dadka kala saarin. Morgan qalad ku galay marka waxay ahayd oo ugu weynaa, laba markab wuxuu ka soo qaaday qaxootiga oo harti keliya ah Kismaayo keenay. Belgium baa joogay meesha, waagii oo Unitafti bay ahayd moogti. Belgiumkiioo joogay baan annagu ka qabsan. Belgiumka markii Morganka aan wada soconnay, Belgiumkiioo joogaan Kismaayo ka qabanay caydiid. markii la keenay oo magaalii ay yimaadeen waxaa lagu bilaabay maraxaankii, waxaa lagu bilaabay Belgium 2. Belgium 2 waaye, ha iska baxeen meeshii ay ka yimaadeen aadeen. sheekadaasaa la galay. adigu sidii loo waday maraxaankii gacanka hadal baaba lagu qaadayba. niman aqoon-yahano ah oo dhakhaatiira baa laga laayey, niman ciidankii ahaa baa laga laayey. markaasay soo baxeen, waxay yimaadeen meesha la yidhaahdo Gooweyn. halkaasaan ku kala leexannay annaga iyo Morgan. cadaalad darre uu ka sameeyey Kismaayo baan isku weynay.